aniya kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan aniya kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan aryaada maanta waa maalin Puntland maanta waa maalinteedii maanta madaxweyney doorteen maanta war Cabdulla waxaad ka tagtay maanta madaxweyne deeni maanta aryaama madaxweynaha la doortaa dayn lagu leeyahay shibowse qaata waa yaabe war yaaraheen ninku dayn ma qaadana waa deni waa maalqabeen warnimayo maanta Puntland doorasho rasmiya ka dhacday oo dhihi karno xor bay ahayd 22 musharaxa soo safatay oo madaxweyne u tartamaysay Puntland rag waaweyn oo magac iyo maamuus inay leeyihiin u haystay madaxweyne noqonayaan ayaa ayagoo yar hoolkii ka baxay ay yeesheen nin weyn oo Saciid Cabdullaahi Deni la yiraahdaa ku soo baxay marka waxa la yiri dhaxalkeeda iyo magac iyo dhulkii kay u dhiibatay dhaartuu u maray aan uga dhabayn ee dhagar ka gala dib laasima iyo ceebaan dhamaan war madaxweynaha cusub ee Puntland waa la dhaariyay nin war ma hayside ma kugu wallaahi baa la yiraahday waa igu wallaahi buu yiri aryaadaha ama qooryo xere lagu dhaarshay walba xilahay talaaqan ama lagu dhaarshay ka rumaysa maayo warnimayo madaxweynihii hore Cabdiweli gaaskiya ku kacay maanta wareegi koowaad ayaa daadka lagu daray kadibna daawada iyo goobjooga goobta ka ahaa laakiin waxaan soo xasuustay waagii uu la tartamayay Faroole hal codow ku guulaysto Faroole ugu guulaystay maantana ciyaartiisu wareegi koowaad uu soo dhaafi waayay aniga nimayo waxa ila yaabadnaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha juxa oo iska dhigaya nin balaaye meesha wuxuu ka ahaa gorayay gabal ku dhac hal cod xataa meena hal cod bowa ka xunnahay taas warjabiyo $1 milyan oo dollar ay ka baxday wareega koowaad oo ku haray warnamada doorashada Puntland 4 generaal baa ka qayb gashay midkii ugu dacda yaraa oo 40 sano jiraan inta yiri laga aqbali waayay in la dhaariyo ay tagtay dadkuna ku xamanayeen uu 36 jiro ayaa madaxweynaha sigay oo wareegii labaad oo 4 cod kaliya looga guuleystay marka General Morgan oo 1 cod helay iyo labadii kaloon la soo hadal qaadinba waa ka baxay meeshii waryaalaha dhagaysta inankan yarka ee General Libaax la yiraahdo waan ka shakisanayn inuu madaxweyne nagu noqdo Soomaalilandna dagaal culus baabay soo qaadilaydo garawa ayay sanka soo saarilayd hadduu kaas madaxweyne nagu noqon lahaa waya doorashada Puntland fur iyone halaalahayd madisan latin tii koonfur galbeed hoog mahayna hoogaha laakiin walaago yagyag ee bajiran oo heelad iyone dirgisada ka aalasa warnimayo haddii doorashada koonfur galbeed xildhibaanadii codeeyay mad keerow iyo mad isaaq iyo mad nuur u badnaayeen kuwa Puntland dhagaysta xildhibaan Libaax waa codeeyay xildhibaan Dhoobo waa codeeyay xildhibaan Digsokeeye waa codeeyay xildhibaan Bala Alla waa codeeyay xildhibaan Daad waa codeeyay xildhibaan Isbariijiye waa codeeyay xildhibaan Samatar waa codeeyay xildhibaan Indhakulul waa codeeyay xildhibaan Warsame waa codeeyay warniyo nimanka ka sheekeynaysa magacay khatar ay leeyihiin waaban ka shakiyay ama Soomaaliland soo duulaan war wafdigii ayaatan dawladda ka socdo garoonka ay cad ugu xayirna markii Cabdiweli xilka laga dhigay isla markii diyaar raaceen war ninka la doortay annagu ciduu hadda la socdo raacayo ma naqaan laakiin haddii la doortay talaado arbaca ku xigta marka arbacaynuusan ka fogeyn ayaa iska cad dib waxay ka noqotaba horta la hambaliye madaxweynihii hore Puntland Faroolana wuxuu yiri madaxweynaha cusub ee Puntland waa soo dhaweynayna war madaxweynaha Puntland isla saacadii la doortay ayuu amar soo saaray wuxuu leeyahay akoonadu dhammaan waa xiran yihiin qof lacag ka bixin karana ma leh waaba hadday ku jirtee Cabdiweli yuu wax la bixin miyuu ka wadaa ayaantaanina waa uu id igaarna ilina ku tal ayaantaanina waa uu id igaarna ilina ku tal haye war madaxweyne ku-xigeenka Puntland qowdhan iyo garaasha ku tartamay garaashana ku guuleystay naw war qowdhan kama tartamin Puntland been ha sheegin anu waxaan leeyahay mu'amarad nin meermeeriye belemaleegaba ma taxaabo duul kale wuxuu ku maqnaadaaba waa laga maarmaan inay baalin dabartaaye meeqa mid
nabadiidyadii madar ku ceeboobay war adeero maaha sidaase waa nin barwaaqa heesaba mar bay bela ku ciirtaa doorashada Puntland xuquuqda dumarka waa lagu xadgudbay dee baarlamaanka dhan wax dooranayay hal gabadh baa ku jiray musharaxiintana dee hal gabar kuma jirin baayo waan fasaxnay tukarraq shicibkiina waa isdhex maraya aryaadhaha maahmaahyo cusub oo Soomaaliyeed haddaan soo baxda waxayna tahay ma taqaanin madaxweynihii mug la doorto mug lama doorto arrisaas maahe mahmaayadaha ku dheelin nimaa duugtay iyo nimaa doorataba dib looma arko lama god la dati mama ku dhelatihiin tayani waasidaha makasaysin aku bisato no toonasta ninay doorato mar labaad inay soo dooran waa ku saanta marninkii xil u qaatay hadii ay la macaato miska soo malabsaa isagu miisashoonin ونمي عبد الرحمن عبد الشكور هوتيل حزبي يسكو شيرنبي ayaa laga joojiyay kadibna banaanku inta soo istaagay oo live soo galay laamiga dhexdiisa wuxuu yiri waa aniga banaanka taagan ciidanku ay dilaan buu yiri wax kale ima harin aniga ku hadlaya magacayga kan madaxweynaha iyo kan jamhuuriyadda shacabka iyo mas'uuliyiinta Puntland waxaan ka codsanayaa inay madaxweynaha cusub la shaqeeyaan nabad iyo nolol war madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri hadaan la dooran General Asad Diyaano waanu hambalyeynaya madaxweynaha cusub Puntland war finalkii doorashada Puntland dani iyo Diyaana isku soo haray daniyaana adkaaday finalka maamul goboleedina waxa isku soo haray Sheekh Axmed Duxul iyo Ugaas Xaaf war dumarku Diyaana la jireen boowe waana laga adkaaday baayo cadaanta waa u dhashay Diyaana ma marsan annagu haddaanu kala maanahay madaxweynaha cusub waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay hambalyo ana langaas eedjeymi indhahan ma hadhawayna war yaa maadaan matali kara anaga maxsana ku naga taga abeesa haydin cunteen